waxaan meesha maanta aan u joognaa waxay tahay qabyo qoraalkii saddexaad ee dastuurka marxalado badan ayuu soo maray oo kala duwan haba kala badnaadaane wuxuu soo maray maamul goboleedyada dhammaan wuu soo maray la tashi badanaa lala soo yeeshay gobolka Banaadir sidoo kale la tashi badanaa lala soo yeeshay maanta wuxuu marayaa heerka ugu dambeysay oo ahaa marxaladii saddexaad ee dastuurka wax badanna waa laga soo qabtay dhinacyo badan iyadoo laga fiirinayo maadaama uu yahay dastuurka heshiis bulsho oo yahay waxaa laga fiirshay dhinac farsamo ay waliba u harsan tahay arrimihii wadaxaajoodka siyaasadeed ay u harsan tahay laakiin dhankii farsamada ahaa dhammaan waa laga soo wada shaqeeyo oo wax badanaa laga qabtay waxaan kaleeto wax laga qabto waxay tahay dastuurkan asaliyan wuxuu ahaa 16 cutub uu ahaa 2 cutub waa laga jaray oo waxaa lagu daray cutubyada kaleete oo meelihii ugu baahnaa ayaa lagu daray 2 cutub kalena waa lagu soo ziyaadiyey sidaas uu hadda wuxuu ku yahay 16 cutub labana muxuu ahaayoon waxaa lagu daray qabeelihii ugu baahnaa ayaa loo qaybshay 2 cusubna waa lagu soo kordhiyey marka walaalayaal hadda waxaan u joognaa waxay tahay maadaama uu yahay marxaladii saddexaad oo ugu dambeeyay uu marayo dastuurka dhowr la tashiyo badanna uu soo maray maanta waxay u taagan tahay inaad adinka doorka adinka aad ka leedihiin inaad ka qaadataan aad ka fiirisaan waxyaabaha aad u danaynaysaan civil society waa la ogyahay ama ururada bulshada waa la ogyahay waxyaabo badan ay ka fiirshaan ee dadka qaarkood aysan ka arkaysaan filay waxaan rabnaa doorkiina inaad ka qaadataan haweenkana waxaan filayaa ayagana wax badan ay danaynayaan inkastoo aan ka soo shaqeyn aan ka dadaalnay waxyaabihii muxuu ahaayeen oo u baahnaa laakiin taladiina iyo muxuu ahaayoon intaa ka dhihi lahaydeen waa idinkaga baahan yahay inaad ka qayb qaadataan hadal badanna inta la sheegi lahaa waxaa sheegay agaasim Zuweer sheegay haddana waxaan leenahay waxaan idin u fadhinaa kaliya waxay tahay taladiina aan sugaynaa